السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يالمينو لباتشوكتان كسو دوادا وركا تيفيغا سومالي channel ورركا داون دونتانا وحاكم من نغن دونا برلمانكا سوماليا ايا سو جبجبيه كدودي دا يوميل مارينتا قضبادا حير هوسادكا برلمانكا كنا لوغا hadlaya sidii shacabka Soomaaliyeed ay ula shaqeyn lahaayeen hay'adaha amniga ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Faroole ayaa magaalada Garowe kaga qayb galay daahfurka mashruuc wax lagaga qabanayo xaalufka iyo nabad guurka deegaanada Puntland oo ay ku baxayso lacag gaaraysa $50 milyan. Somaliland wasiirka wasaaradda kalluumaysiga ee Somaliland ayaa magaalada Berbera ka furay shirkad cusub oo ka ganacsan doonta kalluunka oo lagu magacaabo Somaliland Fair Fishing. shirkadaasi oo xarun lagu kaydin doono kalluunka ka sameysay magaalada Berbera. daawada intaas warka madaxdiisii waxay nagu soo socda warka oo faahfaahsan hasaatay ku soo dhawaada qadriir xaysiina. baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo gabagabeeyay ka doodida iyo meel marinta qodobada xeer hoosaadka baarlamaanka. warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Muqdisho wariyahayaga Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Balaag. xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo kala fadhiyadii ugu dambeeyayba ka doodayay qodobo ku saabsan wax ka beddelka xeer hoosaadka baarlamaanka ayaa waxa ay soo gabagabeeyeen doodihii ku aadanaa codaynta wax ka beddelka qodobada xeer hoosaadka. wajigii hore ee fadhigan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya uu shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Jeylani Nuur Iikar ayaa xildhibaanada u faahfaahiyay ajandaha shirka iyadoona intaa kadib ay guddiga xeer hoosaadka anshaxa xasaanada iyo daryeelka xildhibaanada ay soo jeediyeen qodobada xeer hoosaadka ee laga doodayo. dooda iyo codaynta kadib ayaa xildhibaanadu waxay ansixiyeen qaar kamid ah qodobadii la soo jeediyay halka qaar kamid ah qodobadana ay diideen waxaana qodobada ugu muhiimsan ee doodaha xeer hoosaadka kamid ahaa qodobka 75aad ee xeer hoosaadka golaha shacabka oo isagu ku saabsanaa codka kalsooni kala noqoshada xukuumadda iyadoona qodobkaasi lagu soo kordhiyay farqooyin cusub oo ay kamid tahay in mooshinka laga keeno xukuumadda uunsan noqon mid faafsan ka hor maalinta ay furmayso dooda ku aadan mooshinkaasi. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad oo kulanka intiisa dambe shir gudoominaya ayaa soo xiray kulanka waxa uuna sheegay in iminka xeer hoosaadku uu noqday mid ka wanaagsan sidii hore isla markaana la samaynayo daabacad cusub loona qaybin doono xildhibaanada baarlamaanka. aad iyo aad wanaagsantihiin shaqo aad iyo aad wanaagsan ayaa la qabtay midkii hore dhaama ayuu insha Allah noqonayaa daabacaad cusub baa la soo saarayaa daabacaadaas cusub wuxuu noqon doonaa mid caadi ah laakiin waxaan ballan qaadaynaa kalfadhiga soo socda kii jeebka pocket size-ka ahaa inaanu soo daabacno waa inoo iyo sabtida iyo shirkii baarlamaanka waa mahadsantihiin shirku waa noo xiran yahay. assalaamu calaykum. Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Balaag, Somali Channel, Muqdisho. madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Faroole ayaa magaalada Garowe waxa uu kaga qayb galay mashruuc wax lagaga qabanayo xaalufka iyo nabad guurka deegaanada Puntland oo ay ku baxayso lacag gaaraysa $50 milyan. warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Garowe wariyahayaga Maxamed Saciid Yuusuf. munaasabada lagu dahfurayay mashruucan wax lagaga qabanayo deegaanka oo lagu qabtay xarunta jaamacadda BSU waxa ka qayb galay madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole xubno kamid ah golihiisa wasiirada madax ka socday midowga Yurub qaar kamid ah gudoomiyaasha degmooyinka Puntland iyo madaxda hay'adaha Keer iyo Adeesa oo iyagu mashruucan fulinaya. wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka duurjoogta iyo dalxiiska Puntland Burhaan Cilmi Xirsi oo munaasabada hadal ka jeediyay ayaa ka waramay waxyaabihii wasaaradda deegaanka u qabsoomay 5 sano ee ay jirtay. waxaan ku guuleysanay in aanu ka dhaadhicino dadka aynu saaxiibka nahay gaar ahaan European Unionka in lagu maalgeliyo mashruucii ugu ballaarnaa 23 sano oo burburka Soomaaliya ka jiray dhammaan dalka Soomaaliya. mashruucaas oo qiimihiisu ay dhanyihiin €25 milyan. intii munaasabadu socotay waxa goobta hadal ka jeediyay mas'uuliyiin ka kala socday midowga Yurub iyo hay'adaha Adeesa iyo Keer oo goobta ku soo bandhigay qorshaha iyo habka ay deegaanada Puntland mashruucan uga fulinayaan. madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole oo ugu dambeyn munaasabada soo gabagabeeyay ayaa tilmaamay inuu ku faraxsan yahay furitaanka mashruucan wuxuuna ka sheekeeyay nabad guurka iyo xaalufka Puntland ka jira. furitaanka mashruucan weyn oo loogu talagalay in lagu bilaabo hirgelinta wax ka qabashada deegaanka
بيادة وإنفايرمنتيغا دولة بولان oo ay ku deeqday kharash dhan 25 milyan dowladaha reer Yurub oo midoobay oo saaxiibka nahay oo ka wakiilay hadda joogo Paulo Tiselli halka ay la fadhiyo iyo hay'ado kale oo ka socda hay'ado kale mashruucan maanta min dhahay waa geedkii la beeray 2009 markii wasaaradda la aasaasay geedo bayn ku koraa hore waa la soo qabtay laakiin mashruuc ugu weyn waa waxaan xusuusnahay deeqiyadu ay ku deeqday 152 milyan qaybtii ugu badnayd inay Puntland heshay dalool inay heshay 50 milyan 52 milyan baan filayay marka bar in la siiyay deegaanka marka qiimo ku fadhiya ka sankarnaysa إذا يجوا يكون داخلي ودلاس إن برلو داخلي مشروع عاس دجاج وحكي قبشديس وزارة سماين تيرو يسقم إيمان ما قاعد يسقم بحيو وقف شقاء كهرو يوم ما إيمان وعيقول تيمي مهمة سياسة معمولك بنلار عن مدحك هاي أو صينة يدجاج waaga aan garaadsaday dhulkaan isu hadayahay si dhowtoona quruxdii waa madaxay ku daawacan say ahaan jiray aad iyo aad baan uga xumahay meesha aan wax marinay haddana kaliftana waa jiraan wax dayac kalifana waa jiraan mashruucan oo maalgelinayo midowga Yurub ayaa lagu wadaa in muddada uu deegaanada Puntland ka socdo wax lagaga qabto xaalufka iyo nabad guurka oo ugu weyn tahay jaridda dhirta iyo baabi'inta boholaha ka samaysma daadadka roobabka oo qayb weyn ka qaata xaalufka dhulka. Maxamed Saciid, Somali Channel, Garowe. kulan looga hadlayay sidii shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha amnigu ay wada shaqayn lahaayeen ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. kulankaasi waxaa ka qayb galay warbixinta noo soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Cali Xuseen Koronto. kulankani oo ahaa mid aad u balaaran oo ka dhacay degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir ayaa waxa looga hadlayay nadaafadda iyo nabadgelyada iyo sidii shacabka Soomaaliyeed ay hay'adaha amniga uga shaqayn lahaayeen adkeynta ammaanka magaalada Muqdisho. waxaana kulanka ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, maamulka degmada Xamar Jajab iyo qaar ka mid ah gudoomiyaasha 17 degmo, xubno ka socday qurba joogta Soomaaliyeed, abwaana iyo fanaaniinta qaranka, culimada diin iyo madax dhaqameedyo, haween, dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo ka kala yimid waxyaha ay ka kooban tahay degmadaasi. kulanka oo ahaa mid wacyigelin ah ayaa ugu horeyn waxa fanaaniinta Soomaaliyeed oo uu ka mid ahaa Maxamed Axmed Qoomaar iyo fanaaniinta kooxda deegaan waxay halkaas ku soo bandhigeen heeso wadani ah iyo kuwa lagu amaanayay waxqabadka maamulka degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. gudoomiyaha maamulka degmada Xamar Jajab Maxamed Cali Axmed oo kulanka ka hadlay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay ujeedka kulanka isagoo ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho inay hay'adaha amniga kala shaqeeyaan adkeynta ammaanka. iskaashi ayaa wuxuu leeyahay runtii midnimada inaan iskaashano kana wada shaqeyno danteena oo ah in aan deegaankeena xasilooni aan ka dhigno lana shaqeyno hay'adaha ammaanka. waqtiga la cabsi jiray runtii waa dhammaatay. maanta waxaan joognaa waqti ah in qof walba oo muwaadin ah oo u shaqeeyo nidaamka dowladnimada ah kana shaqeeyo sidii xasilooni lagu heli lahaa. waana rajaynaynaa runtii inaad adinkana door weyn hore uga soo qaadateen haddana aad ka qayb qaadan doontaan. shacabka degmada waxaan kaga mahadcelinaa runtii waxaa jira dad aad u fara badan oo habeenkii xilliyada dambe nala shaqeeya oo nagala shaqeeya nabadgelyada. runtii dadkaasi waxay u shaqaynayaan waa wadanka, waxay ogyihiin qiimaha nabadgelyada ay leedahay iyo waajibka wadanka uu leeyahay. waan kaga mahadcelinaynaa, waxaan leenahay inaad sida u shaqayn jirteen usii laba jibaartaan. gudoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda iyo arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Cali Axmed Guure oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa waxa uu baaqi kala duwan u jeediyay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. qof ayadu doonaysa inay ummadda baabi'iso isdisha qadana waa dhici kara, laakiin waa inaan dadaalnaa 80-90 iyo 100% waa in la dadaalaa. shacabka ayaana dadaali kara. hay-adka amniga kaliya waxaa weeyaan hadda shacabka uga shaqeyn gudoomiyaha degmada
maamulkiisa iyo shacabkiisu amiya maan awda taaganahay si maanta lagu ammaanay xamar jajab aan ognahay inay ku ammaanan tahay shacabka degan iyo maamulkiisaba waxaynu rabnaa wixii lagu soo duumanay arrintaa inaynu xoog mar labaad iyo mar saddexaad aan saarno dhinaca nadaafadda waxaa laga maarmaan nadaafaddu waxaad ogtihiin inay tahay diiniyan iyo ilbaxnimo iyo caafimaad dhinac kastaba ruuxa maantay soo booqanaya waddan kasta haddaanta oo aad ka tagto garoonka waxaad eegtaa waxaa ugu horeeya magaalada bilicdeeda quruxdeeda jirkaysa u dhisan yihiin haddaad qashin iyo tuqsin iyo wax lagu daala aragto ruuxaasi dadxiis hadduu yahay iyo dan kale u socdo waxaa weeyaan kuma sii noolaan karo ma joogi karo. cabdulqaadir cali xuseen koronto Somali Channel magaalada Muqdisho. wasiirka wasaaradda kalluumaysiga ee Somaliland ayaa magaalada Berbera waxa uu furay shirkad ganacsi oo cusub oo ka ganacsan doonta kalluunka oo lagu magacaabo Somaliland Fair Fishing. shirkadaasi ayaa xarun lagu kaydin doono kalluunka ka samaysay magaalada Berbera. warbixintan waxaa ka soo diray Berbera wariyahayaga Maxamed Cabdullaahi soo fariiste. wasiirka wasaaradda kalluumaysiga Somaliland iyo wasiirka qorsheynta iyo horumarinta ayaa saaka xadhiga ka jaray xarun cusub oo lagu kaydin doono kalluunka iyo barafdhaliyaasha ay kalluumaysatadu aadka u isticmaasho. xaruntan oo ay maal gashatay shirkad lagu magacaabo Somaliland Fair Fishing. shirkadan oo ay asaaskeeda leeyihiin xubno qurba joog oo reer Somaliland ah ayaa waxa furitaankeedii lagu qabtay xaruntii hore ee kalluumaysatada Berbera ee Nagfish. waxaana ka soo qayb galay iyaguna mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Saaxil. ugu horreyn waxaa faahfaahin ka bixiyay shirkadan Somaliland Fair Fishing mid ka mid ah xubnihii asaasay oo lagu magacaabo Saciid Cabdiraxmaan Suuf. Somaliland waxay leedahay 450 kalluun oo kala duwan oo la iib geyn karayo. waxaan ku qiyaasnay Somaliland badeeda waxa ku jira 40 ilaa 50 kun oo tan ayaa sanad kasta laga faa'iideysan karaya. nambarada ugu dambeeyay wasaaradda kalluumaysiga aan ka helnay waxa weeyaan wax ka yar 500 oo tan in sanadkii laga soo saaro lagana faa'iideysto. marka xagga nambaradaas waxay tusayaan fursad weyn ay leedahay Somaliland xagga kalluumaysiga. waxa mahad iska leh Ilaaha ee Qafuur Raxiimka ah ee inoo suura geliyay in aynu furano maanta xarunta kalluumaysiga ee Fair Fishing. mar labaadka waxa mahadnaq ballaaran iska leh madaxda sharafta leh ee jidka dheer u soo gashay inay nagala qayb gasho furitaanka xafladan aanu maanta aan u fadhino. waxaan aad ugu faraxsanahay oo soo dhaweynayna oo iskara taagayna oo aanu baaqaygii horena uu ka jawaabay inkastoo Somaliland Fair Fishing ay quruxdu ahay Soomaalida wal ka xanaaqnaa anagu Somali Fair Fishing Somaliland Fair Fishing baa ka qurux badnay laakiin waan soo dhaweynayna waanaan ku faraxsanahay hawsha ay wadaan waa asad waa hanti u soo korodhay degmada Berbera iyo dadka deegaanka waa hanti ay leeyihiin oo u soo korodhay weey tan ku baqteeya marka waxaanu mashruucan uga faa'iideysan karaa wadankan uga faa'iideyn karaa khayraadkan uga faa'iideysan karaa hadii gidigan baanu soo tagno qof waliba kaalinta uu leeyahay ku soo hagaago. waxaan aad ugu faraxsanahay runtii maanta inoo soo hirgashay oo hay'adda Fair Fishing inoo keentay ururkaas inoo keenay qalabka qaaliga ah oo runtii aan awood hore u lahayn. rag baa dadaalay wadaniyiina cid ay kaashadaan oo maaragtay ay saaxiibo la yihiin wadamada ay la joogaanna way kala qayb galeen. aad baan ugu mahadnaqaynaa hawsha ay keeneen iyo waxa inoo qabteen. runtii waana wax bilow inoo ah. innagu haddii reer Somaliland nahay kalluumaysato maahin runtii markay runta isu sheegan ma kalluumaysano oo dadkeenu dad kalluun yaqaan maaha. waxa lala soo baxo hadda laga kalluumaystaana waa wax ugu yar weeye. laakiin kalluumaysiga inuu bilaabi lahayn waxa inoo ka bilaabmaya insha Allah qalabkaas oo in ka faa'iideysan doono. Maxamed Cabdullaahi soo fariistay Somali Channel magaalada Berbera. magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Barina maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ayaa xukun ku riday haweeney hore u dishay saygeeda muddo haatan laga joogo 5 bilood. warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Boosaaso wariyahayaga Maxamed Deeq Cabdallah.
maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ayaa maanta xukun dil ah waxay ku xukuntay iftin maxamed cismaan iyo tamaam xuseen kadiid oo xeeraalyaha maxkamadda darajada koowaad uu sheegay inay si kasta u dileen allaha u naxariistay maxamed bashiir axmed oo horey u ahaa sayga haweenaydan xeeraalyaha maxkamadda darajada koowaad gobolka bari bashiir hobaley ayaa maxkamadda ka hor aqriyay eeda loo haysto eedaysanayaasha waxay si camdiya u dileen marxuum la oran jiray maxamed bashiir axmed oo isna Oromaa bishii shanaad 2013 waxay ku dileen mindi wuxuu ahaa marxuumku ninkii qabay sanada labaad ee iftin farku wuxuu ka dhacay Boosaaso xaafadda Rafiiq Raaxo kadibna waa jarjareen oo god u qodeen mitir iyo xoogaa oo ku gureen hilbihiisii oo go'an sida ayaan ku soo eedeynay iyo qodobka 434 xeerka qaabta Soomaaliyeed oo la akhrinay ayadaha hore u soo sheegnay hore baan maxkamadda darajada u horgeynay oo ay qiraal ku fasoona uga qortay maxkamaddu ansixisay balse xaq waxay u leeyihiin maxkamaddu inay mid ugu jeediso eeda loo haysto iftin maxamed cismaan oo lagu eedeynay saygeeda dishay ayaa loo ogolaaday inay ka jawaab celiso eedaynta xeeraalinta waxaana ay sheegtay in saygeeda aysan dilin balse ay dileen tamaam xuseen kadiid iyo cabdishakuur balse cabdishakuur iyo tamaam xuseen kadiid ayaa ganafka ku dhuftay eedaynta loo jeediyay waxaana sheegeen falkaasi aysan iyagu lug ku lahayn axmed salaad axmed gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ayaa kadib markii uu dhageystay eedaynta iyo qiraalka iftin waxa ay maxkamaddu dil toogasho ku xukuntay iftin maxamed cismaan iyo tamaam xuseen kadiid iyadoo eedaysanaha kale cabdishakuurna maxkamaddu ay dalbatay in baaritaan dheeriya lagu sameeyo ka warqabka uu ka warqabo falkan waxaanu xukunay maanta laba eedaysane tamaam nin la yiraahdo iftin naagleeyo Oromaa waxay dileen in maxamed la yiraahdo naagtaas qabay maxamed bashiir axmed jaalowd ee kaliya naagtaas uu qabay masquul lahaa oo uu gadan jiray iyo dukaan yar oo wax yar oo macdaar u lahaa doobi uu dhar ku dhaqan jiray xoogaaba uu ray lacagtaas waa lagu dilay ninka waa la jarjaray waxaa loo qoday god gurigii reer deganaayeen dhexdiisa markaas lagu aasay isagoo jarjaran oo jawaan ku jira dabadeedna 5 bilood kadib baa la ogaaday waa la soo qabtay qiraal bay ku noqdeen maxkamadduna dil bay ku xukuntay labada qof ciidamada ammaanka ee Puntland ayaa 18 bishan aynu ku jirnay October waxay ku soo bandhigeen magaalada Boosaaso meydka Maxamed Bashiir Axmed oo loo haysto dilkiisa labadan eedaysane kaasi oo laga soo fogay dhisme ganacsi hoyna u ahaa lamaanahan hore isu qabay falka dilka noocan ay ku kaceen labadan eedaysane ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee noociisa ka dhaca deegaanada Puntland maxamed Cabdalla TV-ga caalamiga Somali Channel Boosaaso aqoon-yahano iyo waxgarad ka soo jeeda Galmudug ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Nairobi waxaana ay baaq u direen dadka reer Galmudug iyo waliba dawladda federaalka Soomaaliya aqoon-yahanada iyo waxgaradka ayaa intii wariyaasha la hadlayeen waxa ay sheegeen in aan loo dhameyn shirka arrimaha gobolada dhexe looga hadlayo ee ka socda magaalada Nairobi qaar kamid ah hadalada aqoon-yahanada iyo waxgaradka ka soo jeeda Galmudug ee shirkan jaraa'id qabtay waxa kamid ah waxaan rabaa halka kan inaan uga jeediyo baaq iyo talo ku saabsan beelweynta Galmudug gaar ahaan cid kastoo ay qusayso iyo guddigii xamar oo dib u heshiisiinta beeshan dib u heshiisiintaasoo Nairobi laga bilaabay dawladda dhexena ay albaabkeeda furtay xamarna lagu soo gabagabeeyay qaybtii dhaqanka qaybtii siyaasadana loo gudbay oo hadda carqalad aad u weyn lagu hayo si arrintaas ay u dhicisowdo dadka carqaladda ku haya waxaa ka mid ah dawladda dhexe waxaan ka codsanaynaa kulana talinaynaa inay dib u heshiisiintaas beeshaasi ay wado oo ay dhexdeeda rabto inay ka samaysato oo ay qaranka Soomaaliyeed qaybtay ku lahayd uga qaadato
oo ay ku taageerto in dowladda dhexe gacan ka geysato waxaan ka codsanaynaa una jeedinaynaa inaysan ka qayb qaadan kala qaybinta iyo burburinta shirka dib u heshiisiinta qaybta siyaasadeed jooga gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha waxaan ugu baaqaynaa in uusan taariikhdiisa ku qorin beesha uu ka dhashay dib u heshiisiinteeda ay wado oo maalintii dhaqanka la gabagabeeyey asagu uu goobjooga ka ahaa oo uu arrintaas gunaanadkeeda joogay qaybtii shirka qaybtii dhaqanka lagu gabagabeeyey waxaanu ka codsanaynaa una jeedinaynaa taariikhdiisa inuu wanaag ku qorto oo uusan xumaan ku qoran waxaan u jeedinaynaa dadka labada qaybood u kala qaybsan qaybta uu rabo inuu qayb taageero inuu arrintaas ka joogsado oo uu dadka midnimo uga shaqeeyo waa dadkii uu ka dhasho ka soo jeeday gaar ahaanna uu qaranka Soomaaliyeed uu mas'uulka uga yahay guud ahaan qodobka labaad hay-adda CRD oo shir maanta ku qabanaysa oo taariikhdu tahay 23 Oktoobar magaalada Nairobi oo ku marti qaaday shakhsi aan wakiil ka ahayn oo dadka dib u heshiisiinta wataay aysan u soo wakiilan ku marti qaaday waxaan uga digaynaa inay arrintaas ka digtoonaadaan mar dambana aysan ku tillaabsan ilaa wakiil rasmiya ciddaasi ka samaysanayso dowladda federaalka ah waxaan ka codsanaynaa oo sheegaynaa oo aan leenahay gobolka mudug galmudug waxa ka jira khilaaf wax qarsoon maahan muddo sanad uu soo socday shir badan ayaana la qabtay midkii ugu dambeeyay waxa weeye midkii hadda wasiirka iyo xildhibaanadu ay ka qayb galeen kaasoo lagu dhameeyay dhaqankii in la ansixiyay galmudug loona gudbay siyaasadii in la xaliyo laguna ballamay in loo yeero labadii hogaamiye oo maxamed cabdi cilmi iyo cabdi xasan cawaal qaybdiid waxaan leenahay barnaamijkaas socda ayaa lama jaxaabin ha loo daayo odayaashii dhaqanka siyaasiyiintii iyo ganacsatadii uu hogaaminaya cabdinaasir jaamacseed oo xamar fadhiyey oo suldaanka oo ku jiray muddo 9 bilood ah haddana gabagaba ay u tahay gobolada dhexe dadka ku nool waxaan leenahay walaalayaalow inaad noo kala hiilisaan xaq uma leeyihiin inaad kala dhicisaan baa xaq u leedihiin inaad heshiisaan baa xaq u leedihiin oo heshiiskayga dalabtaan oo ka shaqeysaan waxaan leenahay shirka Nairobi ka furmay looma dhama bal iska daaye 10% ma hayaan shacabka galmudug ninka ka socda oo magaceeda ku hadlaya Cabdi la yiraahdo 10% ma hayo waxaan leenahay dawladda yogow shirka isaga looma dhama waxaan leenahay Central Somalia oo dhan ogaada looma dhama waxaan leenahay CRD iyo hay'adaha soo dirsaday shirka looma dhama wal iska daa looma dhame 10% ma hayaan waxaan leenahay nadaaya intaan is xalinayno haddaad xalka iyaga ka qayb qaadan kartaana nagala qayb qaata walaalayaal way rabnaa haddiina nagala qayb qaadan kareen nadaaya walaalayaal waxaan isku kaaya dirinina dhibaatana ka shaqeynina magaalada Hargeysa xisbiga kulmiye ayaa waxa uu kordhiyay tirada gudida fulinta iyo qabanqaabada ee shirweynaha xisbigaasi uu yeelanayo 25ka bisha 12aad ee sanadkan sidoo kale xisbiga kulmiye waxa uu beeniyay inuu jiro khilaaf ka dhashay magacaabista gudida qabanqaabada shirweynaha xisbiga warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Hargeysa wariyahayaga Khalid Ibrahim Cabdi hogaanka xisbiga kulmiye iyo gudida fulinta ayaa shir jiraayad oo habeennimadii Arbacada ee toddobaadkan ay ku qabteen magaalada Hargeysa waxay ku shaaciyeen qodobo ay ku heshiiyeen kuwaas oo ay ugu diyaar garoobayaan shirweynahooda lagu wado inuu qabsamo bisha 12aad ee sanadkan gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo isagoo halkaasi ka akhriyay qodobada heshiiska xisbigu ka gaadhay khilaaf la sheegayay in maalmihii u dambeeyay uu ka dhaxaloosanaa waxaanu sheegay in la kordhiyo tirada gudiga fulinta xisbiga gudidii hore aan soo saaray waxay 19 markii intaas oo dhan qoladii hogaanka loo jeediyay talaasi gudu soo jeedisay in la kordhiyo gudiga fulinta ee kulmiye oo lagu daro 8 xubnood gudiga qabanqaabada in lagu daro 8 xubnood meelo badan oo cabasho ka timid haday beela tahay dabeetana ay noqoto 27 xubnood 8 lagu daray magacyadooda waa la siinaya
guddiga fulinta ee kulmiye waxay ansixisay oo isku raacday in uu guddiga qabanqaabo noqdo 27-ka 19 hore la magacaabay iyo 8 caawa la magacaabay lagu daray la sheegi doono madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo isna ka hadlay shirkaasi jirayd ayaa sheegay in xisbiga kulmiye uu yahay mid dimuqraadi ah oo suurtagal ka dhex tahay dood adag iyo tanaasulaad labadaba waxaan u bogaadiyay go'aankan ay soo saareen xisbigoodu haddaad maqasheen waa la ishayna ishayntaasi tiyaad waxa la Soomaaliya xitaa annaga ceebteeda ma hayno waa caadadeeda na reer kulmiyanahay inaan noronno soo qabsanno doodno يعني هوش يقول بدنا نروح نوصل عليه مدة المعارض كانوا قد يدا قبل قابضة إيوه هوش يسوي ذن بقعات بريء تضابط بقعات shirweynahan ayaa noqonaya kii labaad xisbigani qabsado waxaana shirkii ka horeeyay sanadkii 2018 lagu qabtay magaalada Hargeysa iyadoo lagu doortay madaxweyne Siilaani iyo ku-xigeenkiisa Khalid Ibrahim Cabdi Somali Channel Hargeysa mid ka mid ah isimada sida weyn looga yaqaan Soomaaliya oo sidoo kale caanka gobolada Puntland ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Boosaaso Maxamed Deeq Cabdalla ayaa warbixinta ka soo diray Boosaaso Yusuf Ahmed Saalax oo kamid ah isimada ugu magaca weyn dalka Soomaaliya deegaanada Puntland ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Boosaaso kadib markii isinku uu muddo sanad ku maqnaa magaalada Muqdisho iyo magaalada Kismaayo isagoo ka qayb galay dhismihii dawladda federaaliga ee haatan jirta iyo dhismihii maamulka Jubbooyinka ee loo doortay madaxweyne Axmed Madoobe boqolaal dadweynaha oo kaga hortagay Sultan Yusuf Ahmed Saalax garoonka diyaaradaha ee Bandar Qaasim ee Boosaaso ayaa ku soo dhaweeyay sacabo furan iyo dareen farxadeed iyadoo halkaasina lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed kuwaasi markii uu soo degay iyana halkaas ay ku soo bandhigeen gaada ka ciyaar kala duwan waxaan inta kadib uu ka hadlay socdaalkiisa magaalada Boosaaso marka xiga waxaan u mahad celinayaa dadweynaha reer Boosaaso oo qaybo kala duwan ka kooban oo igu soo dhaweeyay magaalada maanta imaatinkaygan waxa weeye soo dhaweynta diiran ee dabka ka kulul waxa weeye waa uga mahad celinayaa ehelnimada iyo gacaltooyadu ay ka muuqato taa haddaan intaa uga gudbo waxa weeye muddadii sanadka aan maqnaa waxa weeye war la qaba xiisa ma laho markii hore xamar baanu ku hormarray dhismaha dawladda federaalka iyo doorashadii xilligii ay taagnayd taasna si halaaziyo wanaagsan bay ku dhammaatay oo warkeeda kulley idaacadaha iyo meel walbaad kala socoteen taasu markay dhammaatayna waxaan u gudbay magaalada Kismaayo oo maamulkii ku-meelgaarka ahaa ee halkaa gacanta ku hayay oo codsaday in gogol ay dhigaan dadweynaha Jubbooyinkan ay isugu yimaadaan gogoshaas ayaan dadku u horeeyo ka jawaabay baan ka mid ahayn halka haddaan tagay muddo 5 bilood bay gogoshaas u tiilay hadduu ilaahay idamka leeyahay iyaduna si wanaagsan bay ku dhammaatay oo maamulka maanta jira oo Axmed Madoobe madaxweynuhu ka yahay maaragta halka ka soo baxay isimada oo inta badan lagu yaqaan inay bulshada ku wacyigeliyaan adkeynta amniga iyo xasiloonida ayaa sultaanku waxa shacabka deegaanada Puntland ugu baaqay maadaama la galayo doorashadii Puntland in amniga ay adkeeyaan waxa weeye waad ogtihiin macna muddo kooban wax yar kadib Puntland waxay gali doontaa doorasho iyadana dadweynaha reer Puntland waxaan ugu baaqayaa in laga shaqeeyo xasiloonida in la iska daayo shidada qofka ilaahay u qoray baa doorashada ku soo bixi doona Yusuf Ahmed Saalax waxa hore uga tagay deegaanada Puntland isagoo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Puntland ee u socdaal dhismihii dawladda federaaliga ee Soomaaliya Maxamed Deeq Cabdalla TV-ga caalamiga Somali Channel Boosaaso magaalada London ee xarunta wadanka Britain waxaa lagu qabtay kulan ay soo abaabuleen ururkii asaasay SSDF 35 sano ka hor kulankaasi ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka socda dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland kulankan ayaa lagu sheegay in lagu sameynayo urur magaca madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allah u naxariistay Cabdullaahi Yusuf Ahmed ururkaasi oo lacagta uu sameeyana lagu caawin doono dadka inta kulanku socday waxaa laga hadlay noloshii Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yusuf Ahmed waxaa dadka halkaasi ka hadlay ay si weyn u soo dhaweeyeen fikradda ah in urur lagu sameeyo magaca madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yusuf Ahmed isla markaasina dadka lagu caawiyo Allah u naxariistay Cabdullaahi Yusuf Ahmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa kamid ahaa asaasayaashii Puntland waxaana sanadkii 2004 loo noqday madaxweynaha Soomaaliya iyadoo bishii Maarso sanadkii 2012 uu ku geeriyooday wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta dadka kulankan ka hadlay ka qayb galay waxaa kamid ah Cabdirashiid Seed oo ah safiirka wareega ee dawladda federaalka Soomaaliya waxaana uu faahfaahinayaa ujeedada kulankaasi loo qabtay iyo qaabka wax loo qaban lahaa
sidii aan caawaba ugu nimid halkan inaanu isku wareysano oo runtii ay ahayd fursad weyn oo aanu ka hadalnay taariikhdii ururkii SSDF oo u horeeyay Soomaaliya markii 9 sano xukunkii militariga uu jiray soo baxay ururkaas u taagnaa badbaadinta Soomaaliya iyo gaar ahaan anagoo ku xusuusanayna caawi taariikh aan rabno inaan qorno ama aan ka hadalno gaar ahaan ku xusuusano hogaamiyihii ururkaas President Abdullahi Yusuf Ahmed Allah u naxariistay sida sawirkiisuba caaw halkan ka muuqdo ragga qaarkood ay soo bandhigeen oo aanu jecel lahay inaan u samayno charity ama foundation ama sanduuq lagu xusuusto taariikhdiisii oo markaa gargaar looga aruuriyo dadka Soomaaliyeed iyo dadkii dhibaatadu ku soo gaadhay dhibaatooyinkii Soomaaliya ka dhacay oo aanu jecel lahay in aanu isu keenno dad fara badan oo Soomaaliyeed oo Soomaaliya gudaheeda iyo dibaddeeda ku nool gaar ahaan waddankan Britain marka martiqaad gaar ah ayaa dadka shirka qabanqaabiyay oo ku mahadsan yihiin ay ugu martiqaadeen anoo ah dowladda Soomaaliya u shaqeeya oo dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho sida la ogsoon yahayna President Abdullahi Yusuf Ahmed wuxuu ahaa asaasihii ururka SSDF iyo ninkii horseeday ama 15 sano ka hor taagay isagoo la kaashanaya odayaasha dhaqanka iyo dadweynaha goboladii waqooyi bari la oran jiray ee Soomaaliya oo Puntland markaa asaasay Puntlandna waxay sal u noqotay aakhirkii inay isu keento ama ay ka qayb gasho shirarkii Soomaaliya lagu mideynayay ee lagu doonayay qarannimadeedii in lagu taago laguna soo celiyo waxaan ogsoonahay Allah u naxariistay Abdullahi Yusufna dowladii uu horseedka ka ahaa inay 17 sanadood ka bacdi ay dowladnimadii Soomaaliya geysay villa Soomaaliya iyo caasimadii qaranka Soomaaliyeed ee Muqdisho oo maantay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee madaxda ka yahay President Xasan Sheekh Maxamuud ay fadhigiisu ay tahay ummadda Soomaaliyeedna laga rajeynayo inay dowladda ay gacan siiso dowladdaasuna ay ku baahdo dhammaanba jamhuuriyadda Soomaaliyeed inta doonaysa dowlad Soomaaliyeed oo federaal ah oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho waxaana gidigeen u rajeynaynaa in dowladdaas ay noqoto dowlad hergasha marka dadka Soomaaliyeed ee caaw halkan isugu yimid iyo dadka kale ee daawanaya barnaamijkanba waa in ay sida ay walaalaha iga codsadeen qayb ka noqdaan foundationka la damacsan yahay in lagu ururiyo taariikhdii President Abdullahi Yusuf iyo halgamayaashiisii la soo halgamay ee ururkii SSDF oo runtii qayb xoog la ka qaatay asaaska Puntland iyo xitaa galitaankii lagu ballaariyay dowladda Soomaaliya ee federaalka ahayd ee ku meel gaarka ahayd gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo Baydhabo iyo Jowhar iyo qaybo ka tirsan jamhuuriyadda Soomaaliya magaalada Hargeysa ururka saxufiyiinta Somaliland ee Soldier ayaa shaaciyay daahfurka tartanka saxaafadda sanadka oo ay sheegeen in abaalmarin lagu helayo warbixinta waxaa ka soo diray magaalada Hargeysa wariyahayaga Cumar Serbiya ururka saxufiyiinta Somaliland ee Soldier wuxuu shaaciyay tartan ugu talagalay inay ka qayb qaataan warbaahinta qoraalka ah ee ka howlgala gudaha Somaliland sida website-yada iyo wargeysyada tartankan oo ururku sheegay inay ku bixin doonaan abaalmarino iyagoo la kaashanaya hay'ado caalami ah sida UNDP ayaa xogaya ururkaasi Maxamed Rashiid Maxamed Faarax uu faahfaahiyay 4 qaybood oo tartankaasi lagu galayo ururka saxufiyiinta Somaliland ee Soldier wuxuu idin sheegayaa ama idin ku wargelinayaa dhammaan wariyaasha Somaliland ee ka kooban qoraalka in jaayisad ama award la siinayo sanadkan tartan loo galay taasoo ka hadlaysa wariyaha ka soo qora 4 qaybood oo kamid ah qoraalada kow dumarka ama haweenka genderka soo yaqaano dhalinyarada iyo darbi chiefka مثلا وعيالك child and children baa ku qoran arrimaha asaasiga oo nolosha iyo investigative journalism afartaas ayaa wax lagu bixinayaa award Mustafa Khayr oo ka socday hay'adaha iyagu ururkan Soldier ka caawinaya bixinta abaalmarinada ayaa isna ka sheekayay sida loo siin doono saxufiyiinta iyagoo abaalmarinadaasi mutaysta waxa abaalmarinada ay Soldier guddoonsiinaysaa saxufiyiinta guuleystay 10 December oo ah maalinta xuquuqal
insaanka ayaa la guddoonsiinayaa soolja ayaana hawsha runtii garwadeenka ah markay noqoto Somaliland sidaasana hawshu u dhacaysa haddii la hayraho runtii waana dee uga mahad celinaynaa soolja iyo saxaafadaba waxaan rajaynaynaa in suxufiyiinta Somaliland ay si weyn tartanka uga qaybgeli doonaan tartankan oo qabashada codsiyadiisu ka bilaabmayaan 23 bishan oo ku beegan arbacada toddobaadkan laguna dhawaaqi doono natiijadiisa 6 bisha 11 ee soo socota ayaa noqonaya kii ugu horeeyay noociisa ah Umar Serbiya Somali Channel Hargeysa maamulka gobolka Gabiley iyo ka degmada ayaa waxa ay ka qayb galeen soo dhaweyn ballaaran oo Gabiley loogu sameeyay Suldaan Maxamed Suldaan Barre Warsame iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo oo ka kooban caaqilo salaadiin iyo waxgarad faahfaahinta warkaasi waxa Gabiley ka soo diray wariyahayaga Cabdirasaaq Axmed Hayaan ilkaasi maamulka heer gobol iyo heer degme magaalada Gabiley ayaa maanta si diiran u soo dhaweeyay Suldaan Maxamed Suldaan Barre Warsame iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo oo ka koobnaa cuqaal salaadiin iyo waxgarad intii aanay soo gaadhin wafdigani uu hogaaminayo Suldaan Maxamed Suldaan Barre gudaha magaalada Gabiley waxa kaga hortagay maamulka gobolka duleedka bari ee magaalada Gabiley waxaana loo soo galbiyay gudaha magaalada Gabiley waxayna booqdeen wafdigani uu hogaaminayo suldaanku gurigii uu ka deganaa magaalada Gabiley Allah u naxariistay marxuum Chief Caaqil Cabdi Ilaamaan waxayna qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuumku uga tacsiyadeeyeen geeridaasi ku timiday marxuumka intaasi kadib waxay wafdigu u kicitimeen xarunta dawladda hoose degmada Gabiley halkaas oo ay ku qaabileen maayarka magaalada Gabiley iyo xogayaha fulinta dawladda hoose iyo waliba xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabiley waxaana ugu horeyn halkaasi warbaahinta kala hadlay maayarka magaalada Gabiley Shucayb Maxamed Muuse iyo xogayaha fulinta dawladda hoose Cabdiraxmaan Nuur Abakor iyo waliba xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabiley waxaana hadaladoodii kamid ahaa in maanta Suldaan Maxamed waxa weeyaan iyo wafdiga ballaaran ee hogaaminaya salaadiinta kale iyo odayaasha kale sida Suldaan Siciid iyo Suldaan Axmed Nuur dhammaan wafdiga la socda ee kale sharaf weyn bay noo tahay maanta Gabiley ahaan inaan noqono gobolka koowaad ee maaragtay Suldaan uu yimaado ama kusoo maanta maalintii afartanaad ay tahay ee suldaanka ahaa Suldaan Maxamed Suldaan Barre oo maanta Gabiley yimid aad iyo aad baan suldaanka ugu soo dhaweynaynaa degmada Gabiley waxaanu ku leenahay sultaan kusoo dhawow degmadaadii iyo gobolkaagii كل ما أنت واحد من صباحي سلويتي إن سلطان كانوا ما أنت عادي هذا سلوينا إما كانوا واحد من صباحي ترى أنا جوزي من قبل كعوضل gabadii waxa halkaasi hadal kooban ka soo jeediyay oo u badan mahadnaq Suldaan Maxamed Suldaan Barre Warsame waxaana hadaladiisii kamid ahaa qiimaha badan ee quruxda badan ee loo soo dhaweysiin maanta la dad booqashada kaliya noqon maysa mid joogto ah oo ay sii wadi doono mar walba ay noqon doonto haddii ay go'aymo kubanimo leeyahay noo soo dhaweysteen ana aad iyo aad idinku mahadnaqayaa waxaanu kaloo idinka taxsiyadeynaa waana gurigiisa soo marnay Chief Caaqilkeena qaaliga ahaa ee naxariista jannaha ka waraabiyay ee geeriyooday Cabdi Chief Caaqil Cabdi ayaan isagana taxsi uga sidnay reerkii soo marnay marka ma ay raadiyad man idinku mahadnaqaynaa saafar xadda iyo qiimaha iyo wajka furana noo soo dhaweyseen gabagabadii waxa wafdigan maamulka gobolka Gabiley u galbiyeen caasimadda gobolka Awdal ee magaalada Boorama waxaana soo dhaweynta suldaankaasi qayb laxaad la ka qaatay xildhibaan Mahdi Maxamed Xaashi oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabiley isla markaana ah xubinta ugu firfircoon golaha deegaanka degmada Gabiley Cabdirasaaq Axmed Hayaan ilkaasi Somali Channel Gabiley magaalada Laascaanoodna saxafiyiinta ka howlgala gobolka Sool ayaa waxa ay qabteen kulan looga hadlayo dilkii Allah u naxariistay wariye Axmed Sakiin Faarax oo ku beegan 23 Oktoobar waxaana ay u aqoonsadeen maalintaasi maalinta saxaafadda gobolka Sool
warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Laascaanood wariyahayaga Cabdikariim Mulan. kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay oo lagaga hadlay dilkii wariye Axmed Saakin Faarax oo ka soo wareegatay muddo sanad ah eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday iyo bahda saxaafadda ee ka howlgasha xarunta magaalada Laascaanood ee gobolka Sool iyadoo halkaasina saxaafadda iyo eheladuba ay ka hadleen ay sheegeen inaysan jirin waxa tan gacanta loogu hayo Axmed Saakin dadkii ka dambeeyay dilkiisa waxaana halkaasi looga duceeyay in Ilaahay jannadii ka waraabiyo ageesa kale saxaafadda gobolka Sool iyo 23 Oktoobar waxay u aqoonsantay maalinta xuska saxaafadda ee gobolka Sool taasoo halkaasi ay ku saxeexeen gudida saxaafadda ee kala duwan ee gobolka Sool. aanu nahay suxufiyiinta gobolka Sool waxaanu go'aansanay maanta oo kale sanad walba in aan xusno dilka loo geystay Axmed Saakin Faarax waxaan ku rajan weynahay in maalin aan soo qaban doono gacan ku dhiiglihii ka xaqdarnaa ee dilay wariyaheena sanadkii ku buuxsanay oo 23 Oktoobar ah ilaa intaas marxuumkaa dhintay wax ka qabtay iyo wax dabagalay iyo wax meel lagu hayo hadalkiisii maba hayno sidaa la ajigeen waxaan leenahay maamulka meesha ka dhisan goldololada Faarax ku maqan yahay qaybteeda tan kale wariyeyaasha iyagii baa cadaynaya nin walba in maamul gurigiisa ugu dhacay baacsaday kii joogayna siic ku joogay kii dhintayna ku baxay waxay markaa raadiyaan in isagii raadsanayo ninkii baacsanayo daba jooga taana annagu awalba kama sugayn inay wax noo raadiyaan anigu waxaan ku soo gabagabeynayaa taa un ah inaynu ducayno halkaana ka sii wadno muujinana boosku inaga taagnaa. Cabdikariim Nolol, Soomaaliya Channel, magaalada Laascaanood. dad isugu jira naafo iyo danyar ku nool xeryaha barakacayaasha ee magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay ka dalbadeen hay'adaha samafalka in lala soo gaaro caawimaad dhinacyada hoyga iyo cuntada ah xilli diista roobka dayrta uu ka bilowday gobolkaasi Galgaduud. warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga Cabdi Jamaal Macalin Axmed oo nooga soo warrama magaalada Dhuusamareeb. dadkani danyarta ee ku nool xeryaha barakaca ee ku yaala xarunta gobolka Galgaduud ee Dhuusamareeb ayaa ka dalbaday dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka gobolkaba inay gacan ka siiyaan sidii ay ku helayeen hooy iyo cunto ay cunaan xilli uu bilowday diista roobka dayrta. ku fadhiisan kari haddaan roobsan kari hantera waxa ugu jira waxba ima siido ima yaqaanin ilaahan ricdan igu qaba kartaa igu qabta. dadkani guryaha ay ku jiraan ayaa waxay yihiin kuwa ka samaysan cooshado iyo sidoo kale maryo la isu geeyey mana ahan kuwa ka difaacaya roobka dayrta dhibicdiisa bilaabatay iyo qabow aad u daran oo xilligan ka jira gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. roobka waa dareemi kartaa waxa maalka la yiraahdo iga celiya hadda igama kordhisna roobku markii uu yimaado dhibaato qaas ayaa qabata waayo nin socon kara ma aan ihi waxaan ka codsanayaa walaalaha Soomaaliyeed oo ay daawanaya ama ma ay maqli doono haddii Ilaahay yiraahdo xaaladaydu waa cafiran tahay nin xanuunkiisu aad u badan yahayna waanahay من دنا عياله ما تقانا حنون دباتينا وانا هاي لا ينو نقع يا ما هو قبلها انه عاوز كلام ما بقى ايوه وحنا نرب لنا inta kadib ayaa waxa isna ii waramay Cabdilaahi Bootaan oo ah gudoomiyaha kaamka xero military oo faahfaahin guud ka bixiyay xaaladda xilligan ka jirta goobaha barakacayaasha ay ku nool yihiin. inta aad aragtaan iyo in ka sii badan oo aan la gaarin ayaa dhex taala meeshan baahi badan jirta hadda xilli roob la galay dad badan ayaan haysanin hoy ay maartay ka galaan roobka inta codkeenu gaarayo ama muuqeenu gaarayo Soomaaliyeed ama jaaliyadaha Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa dadkan inay soo gaaraan. gudambeyntii madaxa arrimaha bulshada maamulka dowladda Soomaaliya degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud Cabdilaahi Cabdinuur Barre Forfo ayaa wuxuu fariin u diray hay'adaha samafalka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo jaaliyada dibadda ee ka soo jeeda gobolkan wuxuuna ka dalbaday in dadka ku dhaqan xeryaha barakaca gaaraan kaamka xero military in gargaar degdeg ah ay la soo gaaraan. dowladda federaalka Soomaaliya oo runtii xil ka saaran yahay ummadda tabaalaysan
ee Soomaaliyeed inay la soo gaaraan dadkaas hooy iyo wax cunaan inta wax u heli karaan inay ka saacidaan. Cabdijamaal Macalin Axmed, Somali Channel TV, Dulsamaraba. guud ahaan daawadayaal inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa warka TV-ga Somali Channel warka xiga intaan ku kulmi doono waa Jaamac Dabeeraano idiga tagaya sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.